Maxaad kala socotaa qisada Rekha oo dhammaystiran? Maxaadna ka ogtahay xiriirkii la yaabka lahaa ee Rekha iyo Amitabh Bachchan dhex maray? Rekha waa mid ka mid ah halyeeyada Bollywoodka waxaana sidoo kale lagu tilmaamaa gabadhii ugu quruxda badneyd Bollywoodka soo martay qarnigii hore, walow ay arrintan tartan weyn kala kulantay atarashadii Hema Malini. Waxay dhalatay sanadkii 1940 waxayna ku dhalatay guur aan sharci ahayn. Aabaheed Gemini Ganesan wuxuu ka mid ahaa jilayaasha filimada koonfurta. Markii ay dhalatayna wuu diiday inuu gabar ahaan u aqbalo oo ay magaciisa qaadato. Haas kale ayuu qabay, sidaas awgeed ayuu u diiday Rekha oo gogol dhaaf ku dhalatay. Yaraanteedii waxay soo aragtay nolol qaraar, balse quruxdii ay lahayd ayaa keentay in si degdeg ah Bollywoodka ku soo gasho. Filimkii ugu horreeyey ee kulmiyey Rekha iyo Amitabh wuxuu ahaa filimka Do Anjane oo soo baxay 1970, balse wakhtigaas Amitabh wuxuu ahaa haasle qabo Jaya Bachchan. Inkastoo uu haasle ahaa, haddana wuxuu la wadaagay xiriir qarsoodi ah, waxayna faktii hore ku kulmi jireen guriga gabar ay Rekha saaxiibo ahaayeen. Sheekadooda mar walba qarsoodi ayay ahayd, balse hal mar ayay saxaafadda u gudubtay, arrintaasoo keentay in si weyn sheekadooda loo hadalhayo. Sababta sheekada u soo baxday ayaana ahayd kadib markii uu Amitabh ka carooday mid ka mid ah jilayaasha oo dhaqan xumo kula kacay Rekha oo wakhtigaas jilaysay filimka Gande Kisowgand. Dhacdadaas kadib warkii ayaa saxaafadda ku baahay. Amitabh marar badan ayuu beeniyey inuu xiriir la leeyahay Rekha, ujeedkiisa ayaana ahayd si uu u badbaadsado sumcadiisa haaslenimo, balse Rekha ayaa markii dambe arrinta qiratay, wax walbana saxaafadda u sheegtay iyo sida ay u jeceshahay Amitabh. Intaas kadib Jaya Bachchan ayaa la xiriirtay Rekha waxayna ku casuumtay gurigeeda. Way tagtay wadahadal kadib Jaya waxay u sheegtay Rekha in Amitabh aysan ka tegi doonin, wax walboo dhacana uu ninkeeda ahaan doono. Jaya looked at Rekha and said, "Amitabh is mine. He was mine and will always be mine," he revealed. This statement reportedly left a lasting impact on Rekha, leading her to step back. Arrintii waxaa ka faa'iidaystay filim sameeye Qisada kaasoo saddexdooda u soo bandhigay filimka silsila, wuxuuna filimka ka hadlayay qisada Amitabh oo haasle ah islamarkaana qabo Jaya, balse ay noloshiisa soo dhexgalayso Rekha. Dhammaadka filimkase waxaa guulaysan doonto Jaya oo ilaashan doonto ninkeeda. Jaya ayaana samaynta filimkaas u aqbashay guusha dhammaadka filimka ay gaarayso awgeed, wuxuuna filimkaas si fiican u faaliyey xiriirkii qarsoonaa ee Amitabh iyo Rekha dhex maray. Markii uu dhammaaday filimkii silsila, waxaa sidoo kale soo dhammaaday xiriirkii Amitabh iyo Rekha. Intaas kadib Rekha ayaa nolosheeda horay u sii wadatay, waxayna guursatay ninka lagu magacaabo Mukesh Agwarel, balse guurkooda ma noqonin mid guulaysta oo muddo kadib Rekha way iska furtay Mukesh kadib markii ay ogaatay inuu yahay nin dhimirka ka jiran. 3 bil keliya markii ay ka soo wareegatay furinkeeda ayuuna Mukesh isdilay. Sheekada xanuunka badan ayaa ahayd inuu isku dilay shaalkii ama marada saarida ahayd ee ay Rekha lahaan jirtay. Maradaas ayuuna isku daldalay, waxayna dhacdadaas abuurtay in Rekha shoog ka qaado geeridiisa. Warbaahinta ayaana sheekadii uga sii dartay, ayagoona basiin ku sii shubay kadib markii ay baahiyeen in Rekha ay tahay qofka mas-uulka ka ah geerida Mukesh, sidaas awgeedna ay tahay atariisho shar badan. Balse Rekha uma jilcin cadaadiskii ay saxaafadda iyo bulshada kala kulmaysay wakhtigaas, waxayna sii wadatay doorkeedii filim jilista. Haatan waa 70 jir aanan dib dambe u guursan, nolol degan ayayna ku nooshahay, balse qisadeeda waa mid ka mid ah kuwii ugu hadalhaynta badnaa taariikhda Bollywoodka. Filimkii silsila waxaa inta badan la rumaysan yahay inuu dhiirigelinayo sheekada nolosha dhabta ah ee ka dhexeeya Amitabh, Jaya iyo Rekha. Hagalka jacaylka ee u dhexeeya Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan iyo Rekha ayaa weli ah mid ka mid ah muranka ugu badan ee Bollywoodka ka hadlaan.